cashirkani waa part 2 waa qaybtii labaad ee reading comprehension fahamka akhriska. marka hore sheekada ayaan akhrin doonaa sidii caadiga inoo ahayd. sheekada intaan akhrinayo dhageyso, kadibna videoga yarahaki sheekada akhri. markaasi kadib haddii aad aragto erayo kugu cusub oo aadan horaan u arkin, qaybta kale dhageyso ee aan ku sharxayo sheekada iyo erayada si aad markaasi u barato erayada kugu cusub. waxaan filayaa erayo badan oo kugu cusub ayaad sheekadani ka fahmi doontaa, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye in aad fahamto sida jumladaha ay isugu xidhmayaan iyo erayada sida la isugu xidho ee jumladaha loo dhisayo. sheekada ciwaankeeda waxa weeye The Kangaroo's Legs, lugaha kangaruuga xayawaanka la yiraahdo. The Kangaroo's Legs. Here is a story about kangaroo and how she came to walk on 2 legs. One day, Kangaroo was sleeping beneath a shady tree when she heard a noise. A man was creeping toward her, spear in hand. She raced away on 4 legs. But whenever she looked back, the man was still chasing her. They ran until nightfall. Then Kangaroo looked back and saw a glowing light. The man had lit a fire for warmth. Trying not to make a sound, Kangaroo tiptoed away. Kangaroo tiptoed away on her 2 hind legs and escaped. She realized she was walking like a man. It felt strange at first, but she used her tail to balance, and bounding along, she covered more ground and went faster than any man could run. She continued to hop, and over time her front legs became smaller while her hind legs grew longer and stronger. The Kangaroo's Legs, lugaha kangaruuga. Here halkani is a story waa sheeko about oo ku saabsan kangaroo, xayawaanka kangaruuga, and how iyo sida she came to walk ay ku timid inay ku socoto on 2 legs, laba lugood. One day, maalin maalmaha ka mid ah, Kangaroo was sleeping, waxa ay jiiftay beneath a shady tree. Beneath waa hoose ama ka hooseeya. Beneath a shady tree, geed hoos leh hoostiisa ayay jiiftay. When she heard a noise, markii ay maqashay cod ama shanqadh, a man nin was creeping ayaa u soo gagabanayay towards her, dhankeeda. Spear in hand, oo gacantana waran ku haysta. She raced away, waxa ay u orday u carartay meel xaggiisa ka fog on 4 legs, iyadoo 4 lugood ku ordaysa. But laakiin whenever markasta she looked back oo ay gadaal soo fiiriso, the man ninka was still chasing her, weli uu caydhsanayay. They ran, way ordeen until nightfall, ilaa uu habeenkii galay oo habeen ay ka noqotay. Then kadib Kangaroo, xayawaankii kangaruuga, looked back, gadaal ayay soo fiirisay, and so waxay aragtay a glowing light, nal oo ifaya. Glowing waa ifka ama iftiinka sida dabka marka uu baxayo oo kale. The man ninka had lit, waxa uu shiday a fire, dab, for warmth, si uu qandac iyo kulayl u helo. Trying not to make a sound, trying iyadoo isku dayaysa not to make in aynay samaynin a sound, shanqadh ama cod. Kangaruugii tiptoed, faraha ayay ku socotay, oo sida qofka marka uu taagsanayo oo suulasha uu ku socdo, markaas ayaa la yiraahdaa tiptoe. She tiptoed, faraha ama suulasha ayay ku taagsatay away on her 2 hind legs, labadeeda lugood ee dambe suulashooda ayay ku socotay oo ku taagsatay, and escape, way baxsatay. She realized, waxa ay garatay ama waxa ay fahamtay, she was walking, in ay u socotay like a man, sida nin oo kale. It felt, waxa ay dareentay strange, wax ku cusub oo kale. Strange waa wax markuu kugu cusub yahay oo kale. qof marka uu kugu cusub yahay ama aadan weligaa arkin waxaa la yiraahdaa stranger. It felt strange, waxa ay dareentay wax ku cusub oo kale at first, markii hore. But laakiin she used her tail, waxa ay isticmaashay saynteeda to balance, si ay isu miisaanto, isu dheelitirto, and bounding along, iyada oo boodboodaysa,
bounding waa sida qofka marka uu dhulka ku boodboodayo oo kale. And bounding along, she covered waxa ay dabooshay ama waxa ay jartay ayaa la dhihi karaa more ground, dhul badan oo ka badan markii ay afarta ku ordaysay. And went faster than any man could run, waxa ayna u socotay oo u tagaysay si ka badan nin kasta si uu u ordi karo. And she went, way tagtay oo way cararaysay faster si ka degdeg badan than any man could run, nin kasta si uu u ordi karo ama u carari karo si ka dheeraynaysa ayay u ordaysay. She continued, way sii waday to hop inay boodboodo. And overtime, waqti kadib, her frontal legs lugaheedii hore became waxa ay noqdeen smaller, wax yaryar oo ka yaryar kuwa kale, while goorta her hind legs lugaheeda dambe grew longer, ay u koreen si ka dheer and stronger iyo ka xoog badan kuwa kale. Hind waa gadaal, her hind legs lugaheedii gadaale grew way koreen longer and stronger, si ka dheer kana xoog badan kuwa kale. cashirkii maanta intaas aynoo joogo. Inta aynu ku kulmi doono cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.